السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وهرنتي وأدين سلامي هبين وعن وناكسن runtii sida aad la socotaan wadankan ingiriiska maalinta khamiista waa 5 bisha November ee sanadkani 2020 waxaa si rasmi ah kaga dhaqan galaya 4 sitimaan oo markaasi loogu talagalay in xanuunka coronavirus muddooyinkii dambe aad moodo inuu aad u kacay bulshada laga xareeyo waxa uu bilaabmayaa 5 November waxa uu dhamaanayaa 2 bisha December ee sanadkani 2020 karantiilkan cusub oo ay dawladda ay ku dhawaaqday waxaan doonayaa in aad waxyaabo badan aad igala ogaataan siiba dadka ku nool magaalada London maadaama muddooyinkii dambe aysan ii suurtagelin in aan wararka aan idin soo gudbiyo laakiin aan jeclaystay arintan maadaama ay tahay arin muhiim ah in aad markaasi aad ila wadaagtaan waxyaabo badan ama qodobo badan ay dawladda ay ku dhawaaqday waxaana kamid ah in qaybo badan oo markaasi wadanka ah dukaamada iyo waxyaabo badan oo markaasi in la xiro waxyaabo la ogol yahay iyo waxyaabo markaasi la ogoleyn dukaamada furan ayaan rabaa inaad ila ogaataan waxaa kamid ah supermarketyada waaweyn sida Tesco iyo dukaamada markaas lamid ah oo wadankan ka furan sidoo kale dukaamada lagu iibiyo qudaarta iyagana lama xiri doono sidoo kale dukaamada loo yaqaan corner shop waa dukaamada xaafadaha ku yaala iyagana markaasi lama xiri doono oo ay furnaan doonaan sidoo kale dawladda waxay ku dhawaaqday in dentistayaasha meelaha ilkaha lagu sameeyo iyagana ay markaasi ay furnaan doonaan iyo meelaha ama dukaamada okyaalayaasha lagu sameeyo iyadana markaasi ay furnaan doonaan waxyaabaha kale oo ay dawladda ku dhawaaqdo waxaa kamid ah oo ay kamid yihiin in ay furan yihiin news agency waa goobaha lagu iibiyo journalada post office sidoo kale waa uu furnaan doonaa waxa kale oo furnaan doona haduu eebe uu raali oo ka noqdo dukaamada kombiyuutarada iibiya dukaamada sidoo kale alaabadaha B&Q oo kamid yahay kullee dadka garanaya ayaa garanaya waa dukaamada alaabadaha guryaha lagu dhiso iibiya iyagana waa ay furnaan doonaan petrol stationka iyo farmashiyaasha waa ay furnaan doonaan goobaha kale oo ay dawladda ay ku dhawaaqday in ay furnaan doonaan waxaa kamid ah goobaha gawaarida lagu sameeyo MOT-yada bangiyada xafiisyada funeralka ama qofka marka uu dhinto xafiisyada lala xiriirayo waa ay furan yihiin sidoo kale waxaa furan laundryga waa goobaha dharka lagu dhaqdo iyo dry cleanerka goobaha dharka jaakadaha kale la geysto isla markaasna lagu soo dhaqo marka intaasi waa dukaamada sida rasmiga u furan wadankan Ingiriiska markuu si rasmi oo sharcigan u dhaqan galo waa 5 bisha November ee sanadkani 2020 oo khamiista ah isla markaasna la soo afjari doono 2 bisha December ee sanadkani 2020 waa muddo 4 sitimaan ah haduu eeb oraal ku noqdo maadaama intaas ay furan yihiin oo yihiin dukaamada furan waxaan rabaa in aan ogaano isla markaasna aad ila ogaataan dukaamada xiran ama waxyaabaha xiran waa maxay waxa kamid ah restaurantiyada waxa ay dawladda ku dhawaaqday in la xiro ilaa ma kuwa take away-ga markaasi ama laga order gareysto kuwaas waa la ogol yahay in ay markaasi orderka via telephone markaasi oo qofka raashinka marka uu doonayo oo markaasi u dalbado baararka caadiga oo sida sandwichka lagu sameeyo ama kafeega oo kale lagu sameeyo iyaga lama ogola iyagana inay furnaadaan social clubyada waxa jira goobo dadka waayeelada iskugu tagaan oo ay ku sheekeystaan iyadana waa ay xiran yihiin hoteelada iyo waxa kale oo markaas lagu dhawaaqay goobaha ay dadka iskugu yimaadaan ay la mid tahay markaasi maxaa la dhahay goobaha community-yada in la iskugu yimaado sharciga markaasi ma uu dhigayo kafeega waa aan soo sheegay goobaha lagu cabo kantiinka waa goobaha shaqaalaha ama shirkadaha waaweyn inta badan waxa ay leeyihiin goobo raashinka lagu cuno oo kantiin loogu yaqaano goobahaasina dawladda ma ogola sidoo kale sinemooyinka waa la xirayaa tiyaatarada night clubyada sidoo kale way xiran yihiin
jiimamka waa goobaha exerciseka lagu sameeyo iyagana waa ay xiran yihiin. swimming poolada iyadana waa la xirayaa maalinta khamiista laga bilaabo. waxaa kaloo xiran playgroundka waa goobaha caruurta ay ku dheelaan, siiba qaybta caruurta alaabadaha softiga ama qalabka softiga ay ku rakibisay caruurta aysan dhaawacaysan u gaarin, iyadana markaasi qaybahaas ay xiran yihiin. waxaa kaloo albaabada la iskugu laabaya museumyada, runtii dadka waxay ka daawadaan galariyada. saba waa goobaha inta badan dadka messageka loogu sameeyo ama loogu soo riixo, goobaha lagu sameeyo cijiyada oo gabdhaha ay isku qurxiyaan. gabdhaha goobaha timaha loogu sameeyo iyagana waa la xiray. barbarka ama barberiyada ragga timaha loogu jiro iyadana lama ogola in laga bilaabo maalinta khamiista 5 bisha November ilaa iyo 2 bisha December ay furnaadaan. sidoo kale outdoor marketka waa suuqyada banaanka oo inta badan wax laga iibsado. wadankan waxaa jira goobo badan oo maalmaha qaarkood ay dadka raashin keenaan ama alaabada kala keenaan isla markaasna lagu iibsado, taasina lama ogola. sidoo kale waxaanan runtii la ogolayn in waxa ay dowladda ay ogolaataa iraahdee goobaha banaanka marka aan ka hadlayo aan dhahayay suuqyada wax lagu iibiyo waxaanan ku jirin goobaha xoolaha lagu iibiyo, kuma jiraan. goobaha xoolaha lagu iibiyo weli dowladda way ogolaatay maadaama inta badan ay ku yaalaan meelo miyi ah ama fog aan dad badan sidaas iskugu imaanaynin. goobahaasi way xiran yihiin. sidoo kale dowladda waxay ku dhawaaqday kalaabyada iyo goob alaale goobta religionada, goobaha kale religionka ah sida kaniisadaha, masaajidaha iyo dadkan kale qoomiyadahan kale waxyaabaha ay caabudaan, goobaha iskugu tagaan. qofka marka uu dhinto maydka waxa aasi kara oo kaliya ilaa iyo 30 qofood oo reerka ah. waa 30 qofood oo reerka ah oo kaliya ayaa la ogol yahay in uu qofka ay swaab wanaagsan yahay. xilligii hore waxaa la ogolaa oo kaliya 5 qofood in ay aaska ay ka qayb galaan oo janaasada ay ku dukadaan, laakiin hadda alxamdulillah ilaa iyo 30 qofood ayaa la ogolaaday. aroosyada iyadana sidaas ayaa la mid tahay, ilaa iyo 15 qofood ayaa aroosyada qayb. laakiin goobaha aroosyada lagu qabanayay dowladda waxa ay go'aan ay ku gaartay in aan markaasi la furi karin. qodobadaas waxay ahaayeen qodobadan islaha dadweynaha ku nool wadankan Ingiriiska siiba England ha kula wadaagaan qodobada cusub ee ka soo baxay dowladda wadankan Ingiriiska oo karantiilka bilaabanaya 5 bisha November. waa maalinta khamiista hadduu eeba oral oo ka noqdo isla markaasna la soo afjari doono 2 bisha December. dadweynaha Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan uga digo waxaa jira baarar badan oo ay Soomaalidu ay leeyihiin, baarar badan oo markaasi ay ragga iskugu yimaadaan oo ay ku dheelaan maxaa la dhahay cayaaraha kala duwan ee dhalinyarada Soomaalidu aad u jecel yihiin. fadlan waa ka mamnuuc in runtii la isku yimaado maadaama coronaviruska aad moodo in maalmihii ugu dambeeyay oo aad u soo kacay. asxaabay runtii intaas ayaan habeenkan caawa aan u soo galay in dadka UK ku nool ay ila wadaagaan dukaamada furan, kuwa xiran, waxaana loo ogol yahay, waxaan runtiina loo ogoleen iyo ganaaxa imaanaya. waxaan rabaa hal shay inaan ku darsado. dadka marka ay dibadda ay ka soo laabtaan waxaa jira wadamo badan oo runtii dowladdu ay ku dhawaaqday marka uu qofka uu ka yimaado in uu karantiil uu galo. arrintan karantiilka qofka galaya waa 14 maalmood oo kaliya, waa 14 maalmood oo kaliya. laakiin dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa in ay ku adag tahay 14 kaas maalmood in ay guryahooda ay joogaan. sidaas darteed haddii qofka uu jibiyo maxaa ku iman kara ganaax. qofka waa la ganaaxaya. ganaaxaasina dad badan oo Soomaaliyeed waxaad moodaa in ay fududaysanayaan, laakiinse la socda qofka markuu immigrationka uu soo maro isla markaasina qaar badan oo dad kamid ah online-ka ayaa laga buuxiyaa wadanka marka aad soo galayso. waxaa lagu weydiinayaa goobka aad degan tahay, telephone numberka, wax waliba ayaa lagu weydiinayaa. waxaa jiro dad Soomaaliyeed oo ganaax runtii la ganaaxay 1000 pound in ka badan la ganaaxay. dad badan waxaa jira lala soo xiriiray oo la yiri guryaha inay joogaan in kale. qasiyana raba in aad ku darsado hooyo Soomaaliyeed oo kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo dibadda ka soo laabtay ayaa waxaa la yiri maalintii 14aad waxa ay yara fududaysatay saacadihii ugu dambeeyay ee karantiilku u dhamaanayay.
guriga marka ay ka baxda ayaa guriga waxaa soo garaacay laba nin oo markaasi ah qolooyinka karantiilka controla. caruurta ayaa guriga marka ay ka fureen waxa ay yiraahdeen hooyadiina hooyada waxay yiraahdeen haatan ayay baxday. wax ma aysan dhihin way iskaga tageen, laakiinse 3 maalmood kadib hooyada waxaa loo soo diray 1000 pound oo penalty ah. waad dareemi kartaan dad badan ayaa runta hayaa oo lala soo xiriiray marka ay dibadda ay kasoo laabteen. fadlan haddaad dibadda aad jirto oo waddanka dib ugu soo laabato, haddaadan ahayn key workers dadka dowladda sida gaarka ugu shaqeeya sida NHS-ka, ciidamada booliska iyo waxaa jira dadka keerka ka shaqeeya, wasaaradda arrimaha gudaha dadka u shaqeeya, dadka dhismaha culus ka shaqeeya, injineerada ay u badan yihiin. dadkaasoo kale key workers ayaa lahaa looma baahna in markaas ay karantiil galaan hooshada ay wadanayaan. laakiin dadkan kale oo caadiga ah haddii aad markaasi waddanku soo laabto fadlan iska ilaali maalmaha tirsan ee 14 maalmood ee loogu talagalay in aadan bulshada aadan dhexgelin. haddii ay baraali ka noqdo wararkani wixii ku soo kordhaa waxaan isku dayi doonaa in aan mar kale aan sidaan oo kale idinku soo gudbiyo. waa Saalim Dhoore oo mar walba idin leh. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.